garab istaagga qoysaska naftood-horeyaasha u shahiiday difaaca dalka waa rugni ka mid ah tiirarka dowladnimada iyo ilaalinta xaqa daljiruhu ku leeyahay qarankiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana isbitaalka Yeldameeri ee magaalada Muqdisho ku booqday qoyska Rabbi ha u naxariistay marxuun Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo ay toddobaadkan cusbitaalka ugu dhasheen laba wiil oo mataano ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa Mustafa iyo Maxamed oo ah carruurta mataanaha ah ee marxuumka u dhashay si dareen waalidnimo ka muuqday laabta u geliyay waxa uuna xaaladooda caafimaadka xog wareystay dhaqaatiirta ku howlan baxnaanadooda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waalidiinta marxuun Cabdinaasir u sheegay in ubadkan ay leeyihiin dal iyo dawlad aan ilaabin dadaalkii aabahood hadda wixii ka dambeeyana noloshooda ay kafaala qaadaysa dawladdu. waxaa caawana soo booqday madaxweynaheena dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo noo soo tacsiyeeyay geeridii ku timid wiilkayga Cabdinaasir Cabdulle Gacal isagoo wax naga weydiiyay caruurta dhalashadooda caafimaadkooda wax naga weydiiyay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay booqashadiina soo booqday madaxweynaheena si wanaagsan ayuu u kafaalo qaaday caruurta damaanadooda intii ay jiraan oo asagana uu jiro haddii Ilaahay raalli ka noqdo. marka waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay boqolkiiba boqol booqashadii aana soo booqatay waa ku mahadsan tahay. allaha u naxariistay marxuun Cabdinaasir Cabdulle Gacal waxa uu ahaa haliyey nafta u huray difaaca dalkiisa 14 Agoosto 2019 kadib dagaal ciidamada qaranka iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex maray degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. wiilkayga Cabdinaasir Cabdulle Gacal wuxuu ahaa nin wadankiisa jecel nin voluntary ku shaqeeyo oo waxaan ku leeyahay oo wadankiisa u dhintay alxamdulillaah rabbil caalamiin. madaxweynaheena si wanaagsan ayuu noola hadlay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale booqday bukaanada kale ee ku jira cusbitaalka waxa uuna alle u weydiiyay inuu dib ugu soo celiyo caafimaadkooda. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.